gudoomiyaha cusub ee degmada Maxaas Cabdi Muumin Cilmi Xiish ayaa maanta kulan la qaatay baahiyaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee degmada Maxaas. waxaa kulankan qayb ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Maxaas Cabdullaahi Shuuriye Cawaale iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka qaybta 27aad guutada 10aad. kulankan ayaa ujeedkiisu wuxuu ahaa hanaanka ay u wada shaqeyn karaan maamulka cusub ee degmada Maxaas iyo baahiyaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee degmada iyadoo la iskaashanayo. baahiyaha dhalinyarada iyo ciyaaraha degmada Maxaas oo la hadlay warbaahinta ayaa ballan qaaday in maamulka cusub ee degmada Maxaas ay la shaqeyn doonaan waxayna dhanka kale ay u soo jeediyeen talooyin iyo baahiyo ay qabaan oo ay u baahan yihiin in maamulka uu wax kala qabto. waxaan rabaa halkaan inaan baaq uga jeediyo gudoomiyaha cusub ee dhalinyarada ah ayaan rabaa inaan baaq u jeediyo. aniga haddii aan dhalinyarnahay waxaan ku libisanahay isboortiga, waxaanu jecelnahay isboortiska. waxaan rabaa degmada Maxaas ma lahan wax la yiraahdo garoon salax ha ahaado garoon weyno stadium ha ahaado ma lahan wax garoon. dabcan wayna dhisan yihiin naadiyaashii ayagoo tababarahooda iyo wax la yiraahdo dhisan yihiin laakiin waxay leeyihiin garoon ay ku ciyaaraan. waxaan ka codsanaynaa gudoomiyaha degmada Maxaas iyo tiimkiisa waxaan ka codsanaynaa in ay garoon stadium ah oo reer Maxaas dhalinyaradooda sportska jecel ay ku ciyaarto in ay noo sameeyaan oo ay noo gadaan oo ku soo xusiisano oo mar walba magacooda aan kaga tilmaamno. dabcan qodobkaas waa qodobka koobaad. qodobka labaad waxa waayeen waxaan rabnaa haddana naadiyaashii maadaama ay dhisan yihiin ayagoo macallimiintooda iyo tababarahooda wato waxaan rabnaa agabkii iyo qalabkii ay sportska ahay oo wax la yiraahdo la gudoonsii lahay oo ay ku ciyaari lahaayeen haddana in loo raadiyo. aan ka codsanaynaa labadaas qodob ayaan ka codsanayaa insha Allah tacaala gudoomiyaha. anigu horta in badan degmadan aan joogay ka tirsanaa jiray dhalinyarada waayihii dambe marka maamuladii kan hadda dhalinyarada ah oo cusub ka horeeyay iyo dhalinyaradii aan anagu markaas aan dooranay waxay isku heshiinay dhaafta isla wada qaataan degmadana aan loo shaqeynin. degmadii waa la bahdilo waxay noqotay meel oo qashinkii iyo wixii ay dhex yaaliin. maanta waxa yimid marka gudoomiye cusub oo dhalinyaro iyo ku-xigeenadiis iyo wixii dhamaan dhalinyaro shaqa diyaar loo yahay. anagu ka dhalinyar ahaan diyaaraan u nahay inaan wax aan la qabano. haddii la jiifo jiro dheefta la soo doono jiray waa dhamaatay dheef la soo doonto. waxa lagu shaqeyn doonaa volunteers ama mutadawacnimo nin walba sida u yaqaan ha u yaqaane ma la jiifo doono habeenaa la shaqeyn doonaa. yaan hadda la ballan qaadin been ciddii seexad doontaa ilaahina laga baqo. ciddii seexad doontaahu ha seexato yeenan waa ballan qaadayna dhihin dheef la qaadama meesha degmadii la rabaa in la dhiso. hadda maamul dhalinyaro ma jiro anigu u eegaya danta dhalinyarada aniga kolba ma seexad doono waana mid aan hadda aan dheef ku jirinana maana waxaan ilaahay ugu sharad galay in degmadaydu u shaqeeyo u dhinto oonan u camsan aanan ka cabsan shaqadeeda. sidaas aniga walba aan ka rabaa dhalinyaro in uu noqdo maamulka dhalinyarada. marka hadda ma jiro hoggaankiisa sports ma jiro. caqabadaas dheefdoonka ana keentay in degmadani ay dhalinyaradii la kala jibiyo. degmada 4 nin u fasaxnaa jirtay hadda aan shalay aan 1000 qofood ama 100 in ka badan ku galayno dhalinyaro 4 qofood u fasaxnaa jirtay. odayaasha u fasaxnaa jirtay haweenka qaar ka midana waa u fasaxnaa jirtay laakiin maanta waa free sida gudoomiyaha noo ballan qaaday. niyadaas aan ku wada shaqeyno maamul dhalinyarahan helnay dhalinyaradiina waa nahay wada dhalinyaro aan nahay cabsiyay jireen oo waa lagu dilay. haddaad dhimatay degmadaadii aad u dhimatay xaqna lagugu madili doono gacanka xaq daran aa ku dili. marka walaalayaal niyadiina fura. hadda aniga waa ii furantay sideedoo kale u furan niyadda. tii sportsiga iyo ninka la yiraahdo dhalinyaradii iyo wixii dhamaayna maamulkii dhalinyaraha nala dhisaa oo diyaarna u ah
gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Maxaas Cabdullaahi Shuuriye Cawaale iyo laba xidigle ciidanka xoogga dalka Maxamed Muumin Sanay oo dhankooda hadlay ayaa sheegay in muhiim ay tahay in baahiyaha dhalinyarada iyo ciyaaraha degmada Maxaas maamulka dhanka amniga iyo horumarinta deegaanka ay kala shaqeeyaan. Assalaamu calaykum dhalinyaro. Waa idin salaamay marka hore. Waxaan ku faraxsanahay maantay inaan mataqaana dhalinyaradii degmada Maxaaseed ay maantay in hor fadhiyaan. ayaga oo mataqaana diyaar u ah inaan ka wada shaqeyno dhinac kasto oo mataqaana amniga ugu horeeyo oo ku xigo horumarinta sportiska iyo dhalinyarada. waxaan idinku hambalyeynaa sida kalsoonida iyo farxadda leh oo maamulkiina ku soo dhaweyseen. waxaad ogaatiin maamulkan idinku soo simeynay waxaan lagu soo amray inaan Maxaas geyno. Maxaas waa keenay gudoomiyayaal dhammaantiin adika iyo dadkiina reer Maxaaseed dhammaan meel kasta joogaanba waxaan idin leenahay hambalyo. gudoomiyaha cusub ee degmada Maxaas Cabdi Muumin Cilmi Xiish oo hadlay ayaa ballan qaaday in baahiyaha dhalinyarada iyo ciyaaraha uu garab ka siin doono dhismaha hoggaanka dhalinyarada iyo dhismaha hoggaanka ciyaaraha ee degmada Maxaas. dhalinta ayuuna u sheegay inay iskaa wax u qabso ay ku dhistaan garoon diyaaradeed oo degmada Maxaas ay yeelato. waxaana dhanka kale oo ballan qaaday in garoomo kubadda cagta ah degmadan uu ka hirgelin doono. marka waxaan rabaa hadduu Ilaahay yiraahdo maanta jaanis aan haysanaa. jaaniska aan maanta haysano biri ma haysan doono ama waqti dambe oo fog ma haysan doono. jaaniska aan maanta haysanaa wuxuu yahay inaan anigu ahay shakhsi dhalinyaro ah oo degmadan u dhashay inaan ahay. adikuna aad tihiin dhalinyaradii degmadan horfiiq u ahaa indhaha u ahaa. waxaan rabaa marka inaan isla shaqeyno isgarab istaagno dalkeena iyo deegaankeena aan ku dhisano volunteer aan ka shaqeyno wax allaale iyo wixii bilicda magaaladan ah inaan ka shaqeyno. dalalka kaleetood deegaanada kaleetood degmooyinka kaleetood waxaa dhistay dhalinyaro asaagiin ah. inta la egtihiin la eg inaad ka aqoon badan tihiin maaha aadan ka aqoon yaraynaha laga yaabo inaad ka wanaagsan tihiin markii loo fiiriyo dhinaca kartida in marka aad intaas samaysaan oo aan maaragtay si wada jir ah aan u wada shaqeyno waa laga maarmaan. haddii aan marka aan ku dhisano garoonkeena aan volunteer aan ku dhisano annagu aan masaaraha qaadano geedaha aan iska jarno waxaa noo soo gurmanaya dowladda Soomaaliyeed dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo hay'adaha caalamka. laakiin ka hor waa in laga helo sawir ama calaamad muujinayso inaad adigu heegan u tahay u diyaar garowday inaad deegaankaada aad dhisatid. maanta 12 haddii aad hadlaysid garoonka aan dhisan aad tiraahdo balse aan ficilkii fulin wax ka suurtaaba ma laha. aniga shakhsiyan waxaan diyaar u ahay inaan masaaraha ugu horeeyo soo socda aan qaadano garoonka aan jafano. war diyaar muutiin adiga diyaar muutiin ina garoonka inaan dhisano. haddii aan garoonka ina dhisano waxa noo imaan karo donoriska noo imaan karo waxa noo imaan karo madaxda qaranka ugu sareysa noo imaan karo waxa noo imaan karo madaxda dowlad goboleedka Hirshabeelle ugu sareyso ayaa noo imaan karto. waxa noo imaan karo waxyaabo badan oo aan ka faa'iideysan lahaynay dadkii dad wado ama mas'uuliyiin wado aan noo imaan karo. waxa noo imaan karo xildhibaanada nagu matalo dowlad goboleedkan. ilaahay waxaan ka rajaynayaa in isku soo aado iyo garoonkaayni oo dhisan. intaas isku soo kaaya aado waxa imaan karo in hay'adihii ay raashin soo raraan keenaan degmada Maxaas ayagoo siinayo dadka u baahan in loo gargaaro. wadada dhanka Buuliburta xoogaa caqabada ka jiro cabsiya ka jirto. cabsidaas marka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayay u taalaa inay ka qaadaan ka bixiyaan ayaga wax looga fadhiyo waa annagana bulsho ahaan inaan garab aan ku siinana laga rabaa. waa inta degmada Maxaaseed ay ka soo gasho. waxaan rabnaa marka inaan volunteer aan ku dhisano dalkeena deegaankeena volunteer ku dhisano masaarta ugu horeysa aniga aan qaado adikuna iga daba qaadatiin. muhiimadda koobaad waa taas. waxaan idin ballan qaadayaa xafiiska maamulka intaan anagu aan joogno dad dhalinyaro ahna odayaasha habeenkii ma soo bixi karaan adika soo kici kara habeenkii inaad noo timaadaan
oo aan wax isku sheegnaa taa aadan u codsanahay maalin iyo habeenba inuu duu furan yahay idii caddeeyo soo dhawaada waa idila shaqaynaynaa maxaas waxay u baahan tahay in stadium dhalinyartooda ay helaan ay ku ciyaaraan waxay u baahan tahay annagu ka maamul ahaan xafiisyo aan ku shaqayno in la dhiso waxay u baahan tahay solar system in la keeno waxay u baahan tahay hoolkii weynaay oo shirka ama dib u heshiisiinta lagu qaban lahay ama danaha gaarka ah looga tashan lahay u baahan tahay waxay u baahan tahay in wadooyin sax oo waaweyn oo toosan loo bixiyo waxay u baahan tahay waxa degmooyinka kaleetood u baahan yihiin u baahan tahay degmooyinka kaleetood waxay helaan oo degmadan ka maqan waxaan ku raadi karaa inaad dadka kalsooni isiisaan oo kalsooni adiga helo balan ma tahay inaad kalsooni isiinaysaan war balan ma tahay anna waxaa balana inaan har iyo habeen aan u soo jeedo oon u soo taagnaado sidii degmadan ay ku horumari lahayd inaan ka shaqeeyo ayaa balan ah kalsoonidaas marka inaad ii muujisaan ayaan rabaa hadduu ilaa yiraahdo si gooniya aan wax leedigu sheegin wixii dhaliil ah ama cabasho ah oo aad tabataan ama aad la kulantaan inaad ii timaadaan aad ii yeertaan saan oo kale u soo diyaar garowdaan inta aan soo fadhiisto su'aalahaad qabtiin aad weydiisiin sidii idigu shaqayn lahay haddaan wax ka qaldo waxaad qalad inaad tirahdaan toosisaan adika adiga rabaa sida aan wax u wada marka qaar adiki ka mid ah oo ku qanacsan ama si gooniya maxaa tiraahdaa ayagu danahooda ugu dhaxalay hadday ii sacabtumaan adikana ee boogay ugu tahay dhibaato waay qof kasta oo wax tabanayo oo degmada Maxaaseed ku sugan oo ama oday ah ama dhalinyaro ah tabashadooda ilaahay waan ka soo qofka inuu xaliyal rabo looga fadhiyo waa annaga maamul ahaan inaad noo soo sheegtaan annaga daawadeena ku jirto wax bulshada dhibaato u keenayo haddaan ka shaqaynayno inaad noo soo sheegtaan nala wadaagtaan aad tiraadaan waxaas waa saxdeen waxaasna waa qaladeen daawadayna ku jirto daawadiinuna waa ku jirtaa taladaan idiga maqlaynaa waxa laaliye wixii yimaadaan idiga tala siinaynaa waa kala tala qaadanaynaa warkaan iska dhageysanaynaa qof la quursanaahu ma jiri doonto canugu ugu yara saqiirka ah haddii wax lagu qanco saxa uu sheego waa ka qaadanaya odaga ugu weyn ugu garka weyn wax qalada hadduu igu soo qaadana waa ka diidaya asiguna hadduu wax saxa ii sheego waa ka qaadanaya hooyada Soomaaliyeed ama maamada Soomaaliyeed kuwa Maxaaseed wixii tala oo muhiim ah oo ayaga wax ugu yaalo oo bulshada wax ugu yaalo oo deegaankan iyo degmadan wax ugu yaalo haday ii sheegaan aan ka qaadan doona insha Allah maamulkeenana waa isgarab taaganahay waan isla shaqeey doonaa hadii iskhilaaf iyo isqabqabsi iyo buuq oo jiray inuu sii jira ma rabo because waxa waaye saddex qofood oo dhalinyaro ah oo waxaan nahay ma aragtay aad isku fiican iskuna kalsoon waarna marka sidan anagu isku duubnaano adikuna isku duubnaat inaad isku duubnaatiin sidan u kala tala qaadan waxaan marka waa ku soo celinaa mar labaad wax walba hoggaanay leeyihiin anaga saddex nin nahay saddexdayni hal si siman la isku soo kaayadir gudoomiye saddexda nin aniga dhalinyaradu marka hadii aan waayo shakhsigii Maxamed Ibrahim Siyaad Kalsan TV degmada Maxaas